kulan warbaahineedkan muqdisho ay ku qabteen waxgarad siyaasiyiin cuqaal iyo saraakiil ka soo jeeda beesha sade howrarsame ama reer ayay kaga hadleen dhibaatooyin ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado gobolka Gado. kulan warbaahineedkan oo muqdisho maanta ay ku qabteen xubnahan ayaa mas'uuliyiintii madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Cismaan Xasan Yuusuf oo ku hadlayay magaca nabadoonnada beeshaas iyo xildhibaan Shucayb Ibrahim Faarax oo si qoto dheer uga hadlay dhibaatooyin soo noqnoqday oo ay sheegeen in beeshan lagula kacay. waxaan u sheegayaa dowladda federaalka in ay tashatay xuquuqdii iyo wixii annaga aan xaq u lahayn oo dhan waxa weeye ayna dudsiisay annagana inaan tashanayna ayaan u sheegaynaa dowladda federaalka insha Allah biidnillahi ta'ala. 4.5 baa wax lagu qaybsadaa annagu haddaan nahay beesha howrarsame xataa 5 ka mid malnihin sababna waxa waa dowladda federaalka haddaba waxaan soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca xildhibaannimadayda kan beesha aan ka soo jeedo in dowladda federaalka tallaabadii ay aan qaadi doona annagana targetkaas waxaa nagu haya waa madaxda ugu sarreeyay dowladda federaalka dhinaca kale markaan ka eego reerkan aan walaalaha nahay ee hadda xukuumadda noo haya hal nin oo baagamuuda uma ogola reerkooda waxa ugu dambeeyay ninka habeen hore la magacaabay bil baagamuuda ma ahayn aniga wiilkayga iyo walaalkay iyo adeerkayna 5 sano 6 sano 7 sano baagamuuda yahay sidaas walaalo ku ahaan mayno qabiil ku ahaan mayno deegaanna ku ahaan mayno waxaan soo jeedinayaa hadday ehelnimo jirto oo wax wada qaybsi ay jirto oo awood qaybsi ay jirto arrintaas si degdeg ah in wax looga bedelo. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Guure ayaa dhankiisa tilmaamay in gabi ahaanba la doodsiiyay matalaadii beeshan ay ku lahayd deegaanada gobolka Gado. darada Filisoonia ka jirto isaga macallin noogu ah konton iyo laba qof sida hadda aan qoraalka ku hayna oo raaska madaxweynaha ba u shaqayso ama safaarada geeyo ama la taliyaalaha noqdeen ama agaasimaha noqdeen xalay ugu dambeysay agaasimihi u dambeeyay ka dhigay cadaalad darrada isaga noogu macallin ah walaalka oo la isaga macallin noogu ah walaalka oo la isaga macallin noogu ah qatooy isaga macallin noogu ah nin bayaanbadiisa iyo masaartiisa reemiga iyo ninba masaartiisa waxay goysay leedahay annagu dadnimadana iyo gobolkana waxay noo geysaan laayna cadaalad darrada isma waxa kamid ah gobolka ciidamadii qaranka ayaa annaga nagu boobaya awoodii qaranka nagu boobaya xilka iyo mansabka aan kala hayn 30 sano ee qaranka u burbursanaa sharciga gacantaydan ku sameeysanay hay'adda timaada resource-ka noo qaybiyaan lahaa waxay gaan qaadanay ganacsi hadduu yimaado waxay gaan qaadanay maamul hadduu yimaado waxay gaan qaadanay dawlad aan walaal moodayni banu deganayn banu moodayni ma aha walaal waxba isla malihin waxay sada magaciis ku soo baxay hadday tahay presidente iyo hadday tahay noocay doontaba qoyska uu ka soo jeeda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya baa qaadatay wuxuu ku maraqsaday amaanadii Soomaaliya u dhibtay buu ku maraqsaday uu ku dhacay amaanadii uu ku dhacay ciidamada taliyaha CID-da taliyaha xasilinta taliyaha booliska taliyaha daraawishta taliyaha ciidamada intaba qoyskiisa waay annagu madiintaan cayna ilaahay baan ku gafna hal tuulo oo aan garanaya oo qoyskiisa gobol Gado u kuleeyay malaha 200 tuule oo barmanti ah mid joogta ay mid iskuulka loo dareeraya baan aniga howrarsame aan ka degana howrarsame abareer riixan gobolka degma aanan ka soo galin male waxa la doonayaa in lagu boobo deegaan doorashadii degmooyinka in sheeg maxaan ku yiraahdaa councilki buu doonayaa inuu ku boobo ciidamadaas lagu awoodeynayo howrarsame xaduud 3 geesood u degaa xaduud 3 geesood buu degaa waxaan xasuustaa oo cimri u helay 60 sanad bay iga dhiman nimankii mucaaradka la dhihi jiray EBRDF bay maya SSDF ee majerteen kulmis nimankii la baxay 100 nin oo burtine laga keenay waxa la keenay meesha la yiraahdo bulaxa korkeeda on dolo iluu kaga qaxna unaqay habeen 10 nin naga dilay wallahi xaduudan degana wabina waa degana cilli isku oomiyana malaha adargada saad u fikirtaan ma aha aabahayda cadaabta ugu jiro awowgayba inuu qabtay aan ogahay anaa qabsanay cidii wax ila leh oo beelaha sade ee wax ila leh ee reegadka ah
marxaan waxba isla malaha darod waxba isla malaha ninba meel buu degay darod maalin buu darod ahaa qaar burtiya waxay ku hartay bari bay ku hareen qaar Ethiopia galeen qaar ba deegaan baa la siiyay marxaan sidoo kale u noqday ninba meel baa la daji niman yiraahdo xamar maqaamkii baa rabnaa bal maqli jiray maqaamkii xamar war wallahi billahi maqaamkii gada banaanka uu lagu soo saaray waxaana macallin ka noqday oo walaalnimadii dhumiyay fil Soomaaliya dhumisay fil Soomaaliya baa dhumisay maqaamkii gobolka gada yaa looga fadhiyaa waxaan ku dhawaaqayaa oon ku baaqayaa beelaha gobolka gada dega waa noo madal waa meel noo madal waxaan ku baaqayaa kulan la isugu yimaado beelaha gobolka dega oo maqaamkii gobolka gada looga hadlayo ninkii state gobol hanka haay oo xilka raba ninkii dawladnimada hanka haysta oo doonaya cod iyo calaf iyo wiil qaar madow intaba ana u hayo intaba howrarsame u hayo waa laga helayaa waxaan kaga soo noqonayaa maamulka gobolka gada laga dhisay bataatama nooma dhahna annaga howrarsame hadana maba ku qanacsaninba noomaba dhahnaba maba na matalaan deegaanba ma ahaba maba nagu matala deegaan ahaan nagu matala ceelna nina ila lahayn tuulana ila lahayn beerna ila lahayn deegaan ila lahayn haddii uu magacaabay gobolka uu magacaabay oo wiil cabud ka dhashay ii soo magacaabay ka yeeli maayo inta waxaa macallin u ah ninka fil Soomaali saaran oo saacada ka sii dhamaanaysa hadal waa la gamaa isaga galbanaaye haddaad qarisi ma qarsoomaysa ilaahay inayna qarsoomayn marqaati dukumeenti cadaa ka yaala hay'adaha sanfalka ka haya gacanta ku haya hay'ada talaal bixinay hay'ada deeq bixinay nooc kasta ahayd ninna tuuladiisa nin kale kama qaadi kara Suldaan Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa ka talinta beelaha sade oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira gobolka Gado iyo guud ahaan Soomaaliya ee ku qotomay shirkii jaraa'id ee maanta muqdisho ay ku qabteen waxgaradka iyo siyaasiyiinta besha sade howrarsame ama reer waxaan u sheegaynaa oo ugu digaynaa oo mar labaad ugu digaynaa oo mar saddexaad ugu digaynaa oo Soomaalina u marqaati gelinaynaa cid alaale cid damac siyaasad kale dalkan xisbiyada siyaasadeed maamul goboleedyada waxa weeye waa wareegta kursigan 6 bilood u haray farmaajo iyo dawladdiisa federaalka qayb baan ka nahay inaan ku dulmarnahay waxaan kaloo ka tagay maamulka koonfur galbeed kursi aan ku lahayn waxaan deganahay shabeellada hoose warma xun oo geelanay lo'dana daaqaan iyo beeraha anaga kursi baan ku lahayn maamulka koonfur galbeed waxaan deganahay bararsan deganahay bay baan deganahay kursi aan ku lahayn waxa la siiyay Xuseen Yuusuf ah oo lafta garan waa abtigay kursi aan ku lahayn Xuseen Yuusuf ah howrarsame ama raadu galgaduud degan yahay iyo haduu gada degan yahay meel alaal meel degan inuu isku tashtay hadda wala waxaan rabaa inaan walaalihi cabud degan ee howrarsame waxaan rabaa inaan u sheego haddii isu kii geedaameen ay yiraahdeen wax naga tirsan baa tihiin adeer gada weyn aan deganahay ayagoo qoys igu dhex jira calooshida ku dhex jiraan waxaan ballan in kaga qaadaya haddii alla idmo oon idin ballan qaadaya haddii alla idmo kuraasta laga soo xuli doono gobolka Gada in ayagana marti ka noqdaan sidaad marti ugu noqoteen walaalihi cabud ee howrarsame